ninka la yidhaahdo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame oo sanaha saddexaad awalala ah waxaan maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe iyo xafiiska xiriirta gobolka iyo xafiiska xiriirka guud ee dowladda Puntland halkaan ugu soo gudbinayaa difaaca eedda lagu soo eedeeyay muwaadiniinteeda faahfaahin guud mudane guddoomiye garsoorayaal 24 bishii labaad 2019 waxaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo kufsi dil loo geystay gabar yar oo la oran jiray Caasha Allahu naxariistay Caasha Elias aadan waxaana lagu soo eedeeyay dilkaas iyo kufsigaas 10 eedo muwakkil haddaba eedda xafiiska xiriirka guud ee dowladda Puntland ku soo eedeeyay muwakkiliinteeda waa mid aysan gelin ogeyn kana war haynin sababtoo ah muwakkiliinteeda ma jirto sabab ay ku dili karaan kuna kufsan karaan Caasha Elias oo ay daris ahaayeen muddo daris ahaayeen okay waxaa lagu saleeyay horta baaristii markii ugu horeysay ee la baariyay guriga qaabkii lagu baaray annagu waa tagnay halkan aan ka tagnay Gaalkacyo aan tagnay gurigii baan tagnay aagii baan tagnay dadka ay la kulmi jireen oo dhan baan u tagnay annagu xaqada raadinayna waxaa noo cadaatay markii ugu horeeyay guriga la baariyay guryo badan baa ka soo horjeeda kuwa ka dambeeyaan kuwa la siman yihiin waxaa noo cadaatay guriga waa la qiimeeyay guriga yaa degan cali baa degan waa maxay waa xaas sidii reerkooda jooga kana yaa degan faarax baa degan sidii waa xaas baa degan isagana ka yaa degan iska bulo saas horta guriga lagu galay tuunka ugu horeeya wuxuu ahaa qaab iska bulo ah tan labaad kale wuxuu ahaa guriga waxaa ku nagaaday niman ciidankii markaa qabtay ee gacanta ku dhigay keyska oo aan maxkamadda ka codsanayna ciidanka laftigooda inaanu su'aalo weydiino oo baarista markii hore qayb ka galay ee BSF ciidankaas waxyaabaha looga shakiyay markay guriga galeen waxay galeen 4:00 barkii galabnimo ee casarkii waxaana ka baxeen 1 saac iyo bar habeenimo dadkii oo dhan baa isugu yimid waxaa la gurigii gabadha lagu dilay ee lagu qashay waa kana halkan horta saasay nimankani taarikh ku noqdeen wax kale oo xaqaa lagama hayo xiriirka guud jalasadii hore wuxuu soo bandhigay wuxuu yiri dhibic madow oo dhiig waag wuxuuna yiri laab baa wax noo sheegay laabku ma dhiigi rintii wuxuu yahay sheegi waay horta saakad laab DNA-ga sheega oo hidasidaha sheega 7 fac soconaya baa wuxuu qarin waayay bar madow oo meel ku taala inuu dhiig yahay inuu walax kale yahay okay haddaba waxaa lagu saleeyay baarista qaab iska bulo ah waa niman dhalinyaro ah oo wax bartay oo sharaf leh salaad iyo cibaada ka muuqata reer akhlaaq ay ka soo jeedaan waxaa ka soo jeedaan qoys wanaagsan oo wadaada waxaa abaabulay haddaba oo dabada ka raaxayay siday noo sheegeen ehelkiisii iyo iyaguba ay noo sheegeen eheladooda iyo iyaguba noo sheegeen in la yidhaahdo cabdixakiin faarax oo beenaye ah isaga ayaa askar keenay waxay wiilashaas ka shakiyay halay qabto saasaa lagu soo qabtay tuunkaasuu ahaa waa cabdixakiinkaas oo beenayaha BSF inuu ka tirsan marinayno gabadhana isku cid ahaayeen inkastoo gabadha xuquuqdeeda qof kasta xaq u leeyahay inuu doono annaga lafteeda aan dhinac ka doonayno okay waa dhalinyaro alla taqaana malaha wax balwada waxaa laga soo qabtay mid ka mid ah gurigooda maalintii dambe casarkii ayaa laga soo qabtay midna goob waxbarasho iskool oo xisaabiye ka yahay baa BS ugu tageen waxay dhaheen wax tuuna ma haysaa gurigiina yaa degan iska bulana kaalay noo fur waa soo kaxayeen saasaa lagu furay guriga markaa waxaa lasoo qabtay ninka cabdisalaan la yidhaahdo baa iskoolka laga soo kaxayay aftaha oo guriga jooga oo buug ku dhex akhrisanaya baa lagu soo qabtay okay haddaba waxaa soo qabtay ciidan aan booliis ahayn oo BSF ah iyaga oo aan haysan amar maxkamadeed waxaa baaris ku sameeyay BSF iyagoo aan ahayn hay'adda CID ee baarisay tuunka ugu badan waxaa hadda ka hor maamada Elias xaaskiisa ahayd ee gabadha hooyada ay sheegtay inay gaari guuxiis maqashay habeenkii iyadoo soo jeeda oo dhafraysa gaarigii ilaa hadda eedda laguma soo qaban xeeriyuhu meesha geeyay isaga yaqaan isagaan ka horsugaynaa iyo CID laamihii ku hayay gacanta gaarigaas waxaa maxkamadda darajada koowaad ee Gaalkacyo ay ka qabtay waaran bay jirtay markii tuunkii batay markii la sheegay in gaari meesha umeedka soo dhigay gaarigaas taariikhdiisu waxa weeye haddii la ku horeeyahay
gaariga taarikadiisa gadaal baan kasoo gudbinaynaa haddii aan leyno. Okay, gaarigaas lama sheegin meeluu ku dhacay ilaa haddana meeluu ku dambeeyey. si ay dhiidu waxay xabsiga weyn ugu tageen muwaakiliinteeda hal maalin bal halkaa dhegaysta garsoor cadaal rabaa in la helo oo xaqiiqa ah. si ay dhii waa maxay shaqadeedu? si ay dhii shaqadeedu waa inay qofkii baadhaa, saacado kala duwan ku noqnoqotaa, maalmo kala duwan ku noqnoqotaa, hadalla cross multiplication ay weydiisaa oo isdhaafa. hal maalina ayay u tageen. waxaa ii sheegay muwaakilkayga cabdifataax waxaasina baaritaan maaha. waxaad moodaa baaritaan la isla ogaa oo la yiri ninkaasaa dembiga ku cad yahay. wuu u yimid kii baaristu, weliba taliyaha guud buu ahaa ciidanka saidida. wuxuu ku yidhi cabdifataax adiga miya ahaa kayskaas waa kugu cad yahay ee qoro dembigaa. wuxuu ku yidhi aniga dembi aan lahayn haygelin dembi alla ku geliyey. oo suu loo sheegay isagu. okay, isla markaana haddana xeeryaha guud baa tegey oo kayska isla dhinac ka ahaa oo si ay dhida la rabo inuu dabagalo. isaguna hal maalin uu tegey. wuxuu sameeyey markuu tegey kayska xeeryaha guud, wiilkii sawir buu ka qaaday, wixii dembiga adaa galay waa kuu cad yahay qiro wuu diiday. waxaa kaloo jirtay ciidankii b s f ee soo qabtay iyagoo xeradooda ku jira inay u yimaadeen 3 nin oo ka mida 2 ciidan ka mida iyo ninkii ciidanka haystay iyo 2 kale oo la joogay. cabdifataax bay u yimaadeen, waxay ka qaadeen, waxay dhaheen waxaa keentaa dheecaankaa gooska dambe waxay ka mariyeen suuf bahalka dhulkayoo kale ah. saasay u fiiriyeen. uu ka tegey qol kaluu galay, saacad meelahaas ka maraa. wuxuu yidhi dnayga aduu ku sheegay qiro dembiga inaad gashay. qodhiin iyo xeradiin waxaas wax qof lagu baaraa soo dna wax lagu raadiyo. cabdifataax waa iska difaacay. arday buu ahaa biolojiga wax ka yaqaana, foonfoorra ka baxay. wuxuu ku yidhi anigu ma aaminsani in dhiig qaabka lagu qaado, in lagu qaado dna noocaas qalabkeennu inuu yaallo ma aaminsani dalka. ee haddaad dembi rabta inaad dusha saartid ima saari kartid adan raalliga ahow. weliba ninkaas wuxuu ahaa wiilka meesha haysta axmeddee la yidhaahdo. okay, kiisku wuxuu dhacay 24 bishii 2 2019 markii ugu horeysay. si ay dhiidu waxay bilowday baaristii waxay ahayd 16 bishii 4 bay bilowday. waa sida ay sheegtay maamada gabadh dhashay idaacadaha oo dhan ka hadlaysay. waxaasoo life waa haynaa, waxaasoo documentary waa haynaa. waxaa kaloo jiray Ilyas oo hadda gadaasheeda fadhiyo oo ah dhibanaha marxuumadda dhalay. wuxuu idaacadaha oo dhan ka sheegay in gudoomiyaha gobolka dhigaysan oo ku daray in gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii meesha haystaba ay dhaheen 4 qof baa la soo qabtay, 2 dembigii waa lagu waayey, 2na waa la sii daayey. isaguna wuxuu yidhi warna waxaas ima qusaysee 4 qof ii keena. waxaa kaloo jirtay in muwaakiliintada aabahood ay b s u yeedhay oo ay tiri wiilashaadu dembi ma lehe uu ku sii daynaa. aabahood nin xalaala buu ahaa, nin ilaahay yaqaan buu ahaa. wuxuu ku yidhi maxkamadda wiilashayda ama dembi saari karta ama beri yeeli karta oo xaqooyinka aanu hayno ee rabakiiska in lagu mar habaabiyo. wuxuu yidhi wiilashayda ilaahay baa yaqaan inay wax dileen iyo kale, haddii ay wax dileen anaa tiirka geynaya. saas laaligeed maxkamadi ha beri yeesho. nimanyahu idinkaa soo qabsaday, idinkaa la rabaa maxkamadii cadaalad geysaan. odaygii waa joogaa, haddana waa jooga odayga cabdiraxmaan waa joogaa, odayga waa joogaa. doollo markhaatigiisu fogaya waana weydiin kartaan su-aalo. odayga wuxuu yidhi nin ilaahay yaqaan baan ahay, nin islaama baan ahay, 70 baan jiraa, intaa waa tukan, intaa waa cibaadaysanayay. maanta oo aan aakhiru saac joogo oo qoraxa dhacabsa aan ahay, muqfir la-aan ku dhammaysan maayo iyo toobad xumo. wiilashadaas hadday dembi galeen hala saaro maxkamad ha sheegto, haddiis dembi gelin hala sheego. taas waa caddayn halay qorto. kaaliya ii qor, maxkamadda waxaan ka codsanay inay qorto waxyaabaha aan sheegayo o dhan. warqada keliya iska akhrisana. okay, waxaan kaloo haynaa inay hadashay caasha hooyadeed, inuu hadlay Ilyas oo uu yidhi wiilashii qayb ka mid ah baa la sii daayey oo taliyaha qaybtaa noo sheegay iyo gudoomiyaha gobolka noo sheegay, taliyaha ciidanka b s f. waxaan rabnaa marka taliyaha b s f-ta iyo taliyaha ciidankuba iyo gudoomiyaha gobolkaba inay sheegaan nimankaas. annaga waxaan aaminsanahay muwaakiliinteeda in la marmarinayo dhiigga aysan gelin oo dad kale oo la saaray ay baxsadeen, sida idaacadaha dhan laga soo dhegtay, sidaan warbixinta ku hayno, sida waaridku noo sheegay. Ilyas waa nin xaqiisii maqan yahay. qof xaqiisii maqan yahay qofna kuma ciyaareen. gudoomiyaha gobolka hadalkiisu waa dikrato, waa ninka keliya calanka qaadan kara, waa ninka madaxweynaha qaranka matala. sidaas laaligeed gudoomiyaha gobolka hadalkiisii oo Ilyas uu noo sheegay, Ilyas anagu beensan mayno, waa nin madluuma oo wax ka maqan yihiin oo gabadhiis ka maqantay ilaahay soo fiiyo. okay, haddaba difaaca muwaakiliintayda aan u galo xabad aan iyaga si gaara ugu galo. mudana gudoomiye garsoorayaal, asbaabka difaaca. mudana gudoomiye garsoorayaal cabdifataax waxaa laga soo qabtay gurigaysa
uu gaalkacyo ku deganaa 25 bishii labaad 2019 abaaro 4 barkii galabnimo ayaa laga soo qabtay isagoo casharaafsanaya waxaana u yimid oo soo kaxayay nin BSF oo magaciisa la yiraahdo Umar Afdheere oo BSF ka tirsan waxaana horkacayay Cabdixakiin Farar oo beenay ninkii hore aan idinku sheegay ayaa horkacayay oo gabadha isku cid ahaayeen isaga laftigiisu tuubu iska ahaa iyo halkana iska bilo degan yihiin baa laga yaabaa iyo haddii uu coos shay u hayay waxaa lagu sameeyay muwaakilkayga markii la keenay meesha jirdil xerada BSF dhexdeeda ayaa lagu jirdilay waxaa lagu qabtay dab koronto ah halkaas dibadda qori baa laga dhuftay baasturad madaxad baa laga dhuftay daamir baa la xgeliyay waxaa la dambigaas adiga kuma dhaafsana qiro adaa galay iyadoo leeyahay qiro dambi uusan gelin waxaa laga xiray indhaha qorna waa loo kobgras waa la bixiyay lahandida waa sidii loo sheegay waxaa 12 barkii duhurnimo u yimid saddexda mas'uul ee kala ah waa maalintii 24 bisha ee kala ah Axmed Cismaan Diyaano oo aniga ciidanka BSF istagaalkayo warsamihiisu yeey nin la yiraahdo oo dambaara CID ah soo laakiin markii dambe laga marsaday iyo Maxamed Yaasiin Tulay oo ah gudoomiyaha hore ee degmada Gaalkacyo oo raadinaya oo ka dagaalhayo waxaa laga qaaday dheecaan gooska dawladda saan sheegay Axmed ayaa ka qaaday saac gudahood oo ahayd isla koodii duhurnimo ayuu wuxuu sameeyay Axmed soo laabtay oo ku yiri dambiga dhacaankii DNA-ga aduu ku sheegay ee dambiga qoro Axmedina ma aha shaqo scientific ma aha DNA qaabka lagu baaro okay maalintii falku dhacay aftaax 9kii subaxnimo maqayxa ayuu ka quraanay waxaanu haynaa sahaladiisii aan soo daabaan waxaanu haynaa dadkii uu la kulmay uu la joogay nin guri ugu qarsoon gabadh yar ugu qarsoon tahay oo hadba ku noqonaya ama fayl ka galan ama dileena raac ma soo doonteen chance inta ma heleen maalintii falku dhacay waxaa duhurnimadii cabtaa uu ka qareeyay maqaaxi ku yaala magaalada lacag sahlan oo u diray maalintii falku dhacay waxaa duhurkii cabtaa gurigiisa ugu yimid oo la joogay aadan maxamed cabdulle islaamiin la yiraahdo islaam bashiir ay ilmaadirihiin soo walaalo cabdulle ilmaadir oo darbiye okay saldhigga booliiska lama geyn ee xero ciidan ayaa la geeyay oo gaar loo leeyahay waxay ku dhaheen shiine oo ah eedaysanaha labaad ayaa noo ka sheegay ee qiro dambiga waxay yiri aniga iyo shiine midkayna dambigaas ma gelin mana aanan ogeyn gelin qiran mayno oo erayga ku soo celinayeen ilaa iyo garow ay keeneen waxa xafiiska xiriyaha guud ku yiri oo taliyaha guud ee CID uu ku yiri intaas oo dhan maalintii duhurkii wuxuu ka soo qadeeyay maqaaxa ay leedahay gabar la yiraahdo Shukri Gaalkacyo lacag sahal uu diray lambarka 71229 loo diray habeenkii caasho la waayay wuxuu joogay magaalada aaga jaamacadda Caduun wuxuuna la joogay rag ay ka mid yihiin Maxamed Yaasiin Faarax Yuusuf Umar Maxamed iyo Saadiq Sheekh Ibrahim ragga kulli waa soo aragnay qaybo kamid ah qaybana maxkamadii ayaa maxkamadda darajada koobaad ee Gaalkacyo ayaa la geeyay cadeymana oo ka soo qornaa si xaqoodu noqoto habeennimadii habeenbarkii labadii habeenimo waa in iska dhalinyara Facebook iyo Twitter wuxuu galayaa WhatsApp wuxuu kula sheekaysanayay gabar walaashiisa oo la yiraahdo Raxmo oo Nairobi joogta oo baafinta gabadha ay gaadhay oo noogu warbixinay oo gabadha waa la waayay darsnaanahay okay qof kursi iyo dil geystay qof afduuban yahay magaalo ma aadeen mana soo caweeyeen habeenbarkiina Facebook ma galeen iyo WhatsApp dadku waa garan karaa qofku walwalaya nin dhaawacay oo dhaawac kaliya u geystay baa carray markuu magaalada ka baxay boqofkii magaalada ka yimid dadku ku dhaha ma la halin baa la dilay iska daa qof dilay oo afduuban yahay okay laba baarin shahwadii iyo biyahoodii maadaama la yiri kufsiga geystay lagama helin dhacay habeenku falka dhacay habeen ka horeeya ayaa waxa la soo weeraray Cabdi Fataax oo waxa laga qaaday mobilkiisii waxaana gacanta mid ka soo gaaray dhaawac iyo taray maqribkii wuxuu wacay Cabdi Fataax walaalkiis Cabdisalaam maqribkii wuxuu Cabdi Fataax wacay walaalkiis maqribka ay wax dhacayaan habeenka maqribka laftigeedii wuxuu walaalkiis Cabdisalaam wuxuu maqribka ugu yimid guriga markaas Cabdi Fataax uu ka maqnaa Cabdi Fataax wuxuu wacay Cabdisalaam baa guriga yimid uu doomaray marka magaalada jiray isla habeenkaas 8 fiidnimo ayay waxay u tageen Aisha iyo reerkooda iyagoo u tacsiinaya maadaama ay daris yihiin habeenkii garoowe la keenay aroorteedii waxa uu yimid Cabdi Fataax xiriyaha guud wuxuuna ku yiri wax walba adiga ayay ku cad yihiin adeerkaabaana hay qiro dambigaas aan ku difaacay
oo DNA-gaagii ayaa ku soo sheegay wuxuu Cabdifatax ugu jawaabay adeer anigu dembigaas ma gelin garanna maayo dembi aan lahayna ma qarto qofku haddii uu dembi uusan lahayn u dhaho waa galan isagaaba ehelnaara okay waraysi uu siiyey xerriyaha guud laanta af Soomaaliga ee BBC-da kiiska waa ka hor dhacay waxaad moodaa inuu saddexda sanaha koowaad sanaha labaad iyo sanaha saddexaad uu ku xukumay isagu maxkamadda yahay taana laanta cadaaladdan ka hor joognaa waxay ka qabto iyo maxkamaddan soo bandhigaynaa okay asbaabaha awoodda uusan awgood ayuusan kiiskaas u gelin muwakkilka Cabdifatax Cabdiraxmaan Warsame sababaha ayuusan sameeyey oo gurigooda joogay oo xilligaa halkaa marayey oo meesha ka quracanayay oo lacagtaa diray oo habeenkii halkaa la caweynayey muusan kiiskaa u gelin asbaabta difaaca Cabdisalaam baa soo horay sanaha saddexaad mudane guddoomiye garsoorayaal Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame 7 subaxnimo ayuu iskool aaday iskool la yiraahdo Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo secondary oo xisaabiye ka yahay 12 iyo barkii barqanimo ayaa Cabdifatax waxaa soo wacay ayuu Cabdifatax u sheegay in Caasho la waayay Cabdifatax aroortii uu soo toosay buuqdu xaafadii ku arkay wixii maxaa dhacay Caasha la waras waxaan kala soo aragnay inaan hadhow maxkamadda horkeeni doono haddii maxkamaddu noo dirto oo hooy maalintii dhaca Cabdifatax la taagnaa oo gabadha isweydiinayay oo laba guri iska soo horjeeda daris ay yihiin shiina sababta lagu soo qabtayna waxaa ka mid ahayd guriga uu degan yahay oo guriga kasoo labada guriga iska soo horjeedaan guriga marxumaduna waa parallel waa la sameeyay guriga qofka gelaya Caasha hadday soo dhaqado oo gurigeeda ka soo dhaqado oo guriga gasho qof kasta waa arkaya daaqada laga arkaya irida laga arkaya qofka dhuman kara maahan guri lagu qarin kara maahan tan kale gurigu jabaqdiisa waa la maqlayaa guriga dhan baa ku hareeraysan qof la dilayo oo iska caabinaya wax oo qaylinaya oo xoog loo sheeganayo jabaqdiisa la maqleen guri meel dhexda lagu dili lahaa anagu ma aaminsanin gurigaas in lagu dilay tan kale meesha neefka lagu qalo neef baa lagu qalay xoolaha waxaa yimaada qashin oo dhan waxaa yimaada cayaan oo dhan waxaa yimaada tuko iyo shibro waxaa yimaada bisado maxaad moodaa qof dhan dhiiggiis oo meel lagu daadiyey ilkihii lagama helin timihii lagama helin gurigaas waxaanu keenaynaa fiideo aan maxkamadda la wareegayno oo dad soo duubay oo markaa dubay ay noo soo qaadeen markaasaan keenaynaa haddii aan leno gurigaas qolkiiba 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo baa la duubay xeerlihii wuxuu soo bandhigay wuxuu yidhi waxaan haynaa daliil loo maray in dhiig laga dhaqay warma dhiig iyo waxaa isu eg iyo cabitaan ku daatay ma waxaa isu eg qof la dilay jiramadiis iyo ma waxaa isu eg rinji meel ku daatay ama khad loox quraan lagu dhigo oo kale iyo waxaa isu eg dhiig qof bini'aadana qofka dhiiga bini'aadanka soo buuraaba qofka kama ogaa meel xeerlihii cadeymo ha keeno waxaan kaloo idin haynaa okay isla markii bisha 14 bishii labaad 2014 ayuu wacay Cabdifatax oo $2 ayuu diray Cabdifatax baa wuxuu cay walaalkiis Cabdisalaam maadaama uu shaqaynayay kana uu guriga joogay lacag buu diray $2 buu ka cashay islaamnimada 8 habeenimo ayay iyagoo wada socdaan waxa tagay guriga Caasho okay duurkii dambe ee bisha 15 bishii labaad 2019 abaar 4 iyo barkii duhurnimo casarnimo ayaa waxa uu yimid tumay gudoomiyihii hore ee degmada Gaarhaaye Ibrahim oo ah dambi baaraha BSF-ta ma qaanugu dambiga meesha awoodda lagu sii dambi ay ku baari karto BSF-ta iyo Cabdixakiin oo banayaha Cabdixakiin ayaa ku yiri wax tuhuna ma haysaa oo kiiska Caasho ah maadaama wuxuu ku leeyahay Cabdisalaam oo iskoolkiisa jooga way markaa soo qaxayeen kaali gurigii noo fur Cabdisalaam la shida waa soo baxay gurigii uu furay saniga dhex fadhiya isaga ninkii fasaas lagu qaf taasoo kale Cabdisalaam waa curaar wuxuu curaar u ahaa haddii Cabdifatax meesha laga saaro haddii Cabdisalaam meesha laga saaro Cabdifatax dambi yeelan maayo leeyahay laba wiil oo walaala oo guriga degan oo gurigooda nool waa soo yihiin baa leeyahay Cabdifatax sababta loo leeyahay ee sanaad saddexaad oo dib loogu Cabdisalaam sababta loo leeyahay ee sanaad saddexaad sababtaas ka mid ah okay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa su'aalaha isweydiinta mudan waa maxaa guriga lagu tilmaamay maxaa guriga lagu bir tilmaamay oo guriyaha kale looga soo baxay waxaanu aaminsanahay haddaan isweydiinay aqliga haddaan rogrognay haddaan khubaro la kaashanay inay iskaabul ahaan ay tahay iskaabul kale meelaha ma degana dad kale oo diilaha baa deganaa dad kale oo xisbiyaha baa deganaa dad kale culimo kale hadda cusub oo la sheegay baa deganaa xitaa dadka guryahooda waa guryaha ku xigay iyo kuwa soo xiga lama aadin lamana baarin hadda dad islaam aan nahay dad sunna aan nahay dad madhabta Shaafici haystaan nahay dad ay ka surtoobayso ma nihin nimanka dhalinyarada ah salaad baa ka muuqata
cibaada ka muuqata hal berigooda male xeerlihii wuxuu ku dooday waxaa la soo qabtay guriga xashi baa lagu soo qabtay oo ciidan meeluu galay hadduusan qarax dhigin buu bersidaa hadduusan ilka dad dhigin buu bersidaa hadduusan dhigin buu bersidaa waa dhigi karaan qofka haddii dembi loo samaynayo xeerley annaga nama waa dhigi karaan haddii qofka dembi loo samaynayo sida kaleeto xeerleyaa tahay okay hiliblaha wadadiisa ayaa guriga ku yaalla guriga caaisha allahu naxariista eliyaas gurigiisu dhakashuu yaallaa halkaas kale ka yaallaa guriga aftax iyo eedansanayaashu hal kaloo kale hilibluhu halkaas ku yaallaa waa waddada ay sii mari karto gabadhu gadaal kama wareegi karto miyaa luuqas kama bixi karto miyaa shanqadha dilka iyo jabaqda iyo qaylada gabadhaas iyo urta iyo dad badan baa dadba hal qofna ma kufsan karin qofkaa hal qofna gabadhaa ma kufsan karin okay waxay ku tahay muhiimadda tuhunku waa hiliblaha gurigaasi hormartay oo hiliblaha u gudubtay iyo iskaabulaa degan baanu aaminsanna xeeliyuuna isagaa laga rabaa caddayntii bayine ayaa laga rabaa xeeralay qof bini aadana dembi waa loo dhodhoobi karaa laakiinse dembigaas aakhiradu iskula aadi yaa geliyey guriga xashiiska ciidankii galay ayaa geli kara anigu waa geliyey kuma oran ayaa geli karaa si akhri warqadayda bashsigis baargaraafka koowaad akhri baa geli karaan ku waa geliyey kuma oran okay meel qof dhiiggiis lagu daashay xashraad oo dhan ayaa iman kara bisadaa iman kara tukaa iman kara belo kalaa iman karta iyo cayaan kale xeerlihiina wuxuu wax midow baan soo helna sidaas laaligeed annaga waxaan codsanaynaa coskayagan aayado qur-aanah oo shareecooyinka shareecada islaamka ah axaadiis culimada jumhuurka dastuurka dowladda puntland qawaanid kale ee dalka waxaana sii faahfaahinaya qaran xabiib cabdullahi cise oo naska sii saaraya maxkamadduna waa maasada warqadii gudbada بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا داود إنا جعلناكم في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالعدل waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh dhegaystayaasha xafiiska xeeraalinta inaan u sheego horta bini aadan baan nahay ambiyo baa waxaa lagu canaananayay inaan cadaalad falaan si annaga oo bini aadana cadaalad samayno oo sidii loo baahnaa u samayno kollayto waa arrin aada u qariib u ah laakiin waxaan isku dayeynaa maanta inaan helno cadaalad caaisho cadaalad hesho eedaysanayaashan waxa weeye la dhibtoonaya oo tacadiga loogu geystay eed aysan gelin fabrication gacan ku samays waxaan rabaa inaan u sheego maxkamadda horteeda ka caddeeyo whole history sheekada gebi ahaanba inay ahayd wax gacan ku samaysa sida uu qabo qodobka 138 139 waxa xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan maxkamadda hor keeno xaqiiqooyin qiimo gal u noqon kara qadiyadan ay khusayso dibane Caaisho sidaan ogsoonahay horta maxkamadda waxay wax ku xukuntaa waa qiraal bayin iyo caddayn saddexdaa mid ka mid ah xafiiska xeeraalintu hor keenay dadweynuhuna waa daawanayaan ma jidho aan ka ahayn lifaaq uu yidhi waa DNA iskuma dheeli karno aniga qareenka xeeraalinta iyo garsoorku midka ya khabiiru ma aha aqoonna uma laha wax la yidhaahdo DNA waxaan rabaa inaan duro DNA-ga uu maxkamadda hor keenay sida uu ku cad qodobka 11aad habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dacwadda soo wareejinteeda ma garan karo anigu xafiiska xeeraalintu inuu procedure-ka naga badiyo annaga iyo garsoorka laakiin dacwadan habkii loo soo wareejiyey ma ahayn sifo sharciya dembigaani wuxuu ka dhacay gaalkacayo waxay leedahay garsoor madax bannaan maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacayo oo jurisdictionka u leh inay dembigan qaado sababta inta gaalkacayo looga keenay ayadoon la marin hab sharciya la keenin wax dukumiintii oo lagu codsanayo hadday tahay xaalad ammaan ama xaalad gaara ma jirin waxaan rabaa sida ku cad qodobka 53 fatashaada ama baaritaanka oo la samaynayo guri
waxaan rabnaa inaan isticmaalno maadaama aysan olin saddexdaa waxyaabada idin sheegay logic caqligal waxyaabaha macquulka ah ee noqon kara dhammaanteenna aan xukumi karno waxaa la run fakatay been fakatay run ma gaadho waxa social media la soo dhigay dhiig maro iyo ilko iyo gurigaas ilaa iyo hadda dadka waxay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogto waxay aaminsan yihiin eedeysanayaasha maxkamadda la hor keenay inay dambiile yihiin haddaba marka guriga la baarayo oo la rabo in guri la galo waxaa baara waxa weeye police haysta waran maxkamadeed unless wax marka kaliya oo guriga idan la'aan lagu geli karo waxa weeye marka ay falagaran soo joogto la yiraahdo dambiga uu faraha ku jiro qof ama marka laga cabsi qabo inuu qofkaasi ka baxsanayo wadanka haddaba aan isweydiino gurigan markii la gelayay oo ay dhacday dhacdadu waxaa jirtay maysan imaanin hay-adihii police enforcement-igi loogu talagalay sida CID-da iyo saldhigga cid ka report garaysay oo keentay guriga ma jirto waxaa la keenay BSF qiyaasa BSF waa laan aan authoritated ahayn qadiyadan meelna aan ka soo geli karin waxay sheegaan inay yihiin la dagaalanka argixisada den waa ayo cidda wacday BSF oo tiri gurigan baa waxaa ka dhacay fal madaxmada falku waa dhici karaaba qofkuna waxa weeye fal waa geli karaa waana la tuhmi karaa laakiin haddii saf gacan ku samaysahayn qadiyadu maxaa loo wacay BS ama BSF oo ah laanan authoritated ahayn ciidan aan ahayn ciidan loogu talagalay inay baaritaankan sameeyaan ama qadiyadan qayb ka noqdaan maantana aan joogin meeshaan waa idin qoraysaa waxaan rabaa inaad ii sheego marka baaritaanku dhacayo ciidankii waaba yimaadeenba xilliga yimaadeenba madaxumabe inaga oo marayno wardad baynu nahay dowlad baynu leenahay nidaam baynu samaynaynaa due process baynu samaynaynaa garsoor trial saxa waxaan rabnaa ciidanku markay yimaadeen wax baarayeen waxay la yidhi guryaha baa la fiiriyey guriga marka saa loo fiiriyo waxaa la yidhi guriga ayaa degan sida qarankayga hore sheegay guriga familiya oo iyo guri kale iskuula gurigaan yaa degan guriga hal boos baa u dhaxeeya laba boos alla ilaahay waxaan ku qiyaasay 30 mitir baa u dhaxeeya waxa la yidhi waxaa degan niman iskaabula way ka bilaabi karaan baaritaanka tuun baa galay waa la geli karaa wax eeba ma haddii baaritaanka ugu horeeya uu ka bilowday gurigaas taa micnaheedu maaha guriga cidda degan ay tahay niman iskaabula war iskaabula kaama dhigi karo dambiile hortaada xitaa haddii lagu dilo gurigaaga la hor keeno meydka markaa iga dhigi karto dambiile inaa iskaabula tahay annagoo dhan baa iskaabula xitaa haddaan anu gaalkacyo joogi lahaa xafiiska xilaalinta joogi lahaa guriga cid kastoo joogi lahayd maalinkaas maxkamadda waa la hor keeni lahaa waxaana dhihi lahaa dambiga iyagaa galay waxyaabaha kaloo qadiyadan micnaha u sameynaya maadaama ay soonin caddaymo waxaa ka mid a baaritaankii lama weydiin hooyadii dhashay ilyaasoo aabbaheeda lama baarin oo lama weydiin lama odhan 99 xeerka habka ciqaabta wuxuu dhigayaa maxkamadda garmaqalka habsani socodkeeda waxaa iska leh garsooraha adeer nagama badisid habka hal erayna ma dhihi kartid qofna ma amri kartid ilaa qaadigu kuu amro bartaadaa fadhinaysaa waa haddii aan raacayno habka sida uu yahay haddii adiga maxkamaddaa leedahayna waa noo sheegi doontaa baaritaankii garsoore lama odhan hooyada war gabadhaada cadow ma lahayd telefoon ma lahayd war reerkii yaa cadow ku ahaa yaa ishayseen baaritaankii hal garab unbuu ka bilowday abbaaradii ay galeenba ciidanku guriga waxaa aad iyo aad waxa weeye dadku ay isticmaalayeen baraha bulshada waxaa markiiba hadallada wixii laydin idmaday ku ekaa hadda waxaa tiri maxkamadda hadduusan xeeraarintu lahayn annagu cadaalad baan raadinaynaa waxaan ognahay from momentigaan soo galay ilaa hadda xafiiska xeeraarintu isagaa liga garaynayay annagaba asagaa meesha na soo geliyey annagaada laftiga iyaga isagaa na soo geliyey marka inuu amarna siiyaa garsoore 99 buu meel uga dhacaya xeerka habka ciqaabta nama siin karo kiisa u soo jeediyo oo u dhammaysto annagu waa noo keeni doontaa laakiin hadda aan ka ruqsadaada qareennimo ma hayno kaaliya ma haysaa ma hayno nooma aadan keenin laakiin waa noo keeni doontaa oo laakiin waxaanu ku wargelinaynaa qareennada
iyo xeer ilaalinta weliba hadda qareenka hadda hadlayay in uu wixii loo idmaday ku ekaado haddii uu soo dhaafo waa ka joojinayna ha ma garat lama rabo meesha fawdo iyo ma garanaysaa waxaan munaasib ahayn wabillahi tawfiiq wado raalli iga ahaato maxkamaddu haddii aan adeegsaday qodobkaas 99 waana mahadsan tahay maxkamaddu ma sii wadan karaa mudane guddoomiye garsoorayaal sida ku cad qodobka 7aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa jira mas'uuliyado uu leeyahay xafiiska xeeraalinta mas'uuliyadaha xafiiska xeeraalinta guud uu leeyahay waxaa ka mid ah marka uu helo warbixinta baaritaanka booliska hab waafaqsan farqadiisa 3aad qodobka 26aad xeerka xeeraalyaha guud haddii uu ku qanco cadeymaha hore ee dacwadda ay sheegayaan in la galay eedeysanuhu dambiga galay wuxuu markaa qaabeynaya xaashidiisa eedda su-aal baan isweydiinaynaa waxa weeye xafiiska xeeraalinta waa ay cidda eedda usoo gudbisay maadaama laamihii booliiska ee waxa weeye CID-du ay ka mid ahayd aysan geebta joogin baaritaanna aysan ku samayn waxaan rabnaa inuu nooga jawaabo cidda asaga eedda usoo gudbisay ee xeeraalyaha guud ilaan isagu meesha ma tegine cidda eedda usoo qortay tay dambi baa la galay inaanu ogaano oo uu nooga jawaabo baan rabnaa arrintaa iyadaa waxaan rabaa arrin kale inaan idiin sheego oo iyada laftirkeedu waxa weeye qadiyadan micno weyn oo xaqiiqiya u samaynayso muddo laga joogo dhowr asbuuc 2 asbuuc miya 3 asbuuc waxaa tegey goobtii falku ka dhacay warsamo yuusufiyey oo ah taliyaha CID-da ee gobolka nugaal wuxuu yidhi gobolka mudug wuxuu yidhi reerkii buu tegey wuxuu rabaa inuu su'aalo weydiiyo markaasaa waxaa la weydiiyey wareedhe maxaa jira kiiska iyagu konton beri ka hor baa waxa weeye eediisa la gudbiyey oo waxa weeye dadkiina dambiilayaashii lasoo qabtay maxaa baaraysaan hadda hooyada dhashay video ay kaga hadlayso oo ay waxa weeye shir jaraa'id ay samaysay baanu keenaynaa maxkamadda dadweynahana la wadaagaynaa wuxuu yidhi anigu kii horeeto waa layga xoogay oo arrimaha shaqo kuma lahayn wareedhe ma annagaa waa lama saacadan baa laga heysay yaa sameeyey sheekadan cidda dembiga gashay oo eedan geysatay oo qortay oo VS u wacday oo meedkan Aisho meesha keentay gurigan tagtay oo tiri waxa weeye dembigaas raggaasaa galay waa ayo ilaa ay hadda lama garanayo ilaa ay haddana ma uusan keenin xafiiska xeeraalintu cadeymo ku filan oo qeexaya eedda laftirkeeda uu galay sida qodobka uu ku xusan horta dembigan in la galay oo ciddaasi ay gashay ku eedaysan maba keeninba waxaan rabnaa inaan sidoo kale arrin kaleeto aan maxkamadda u sheego oo ah ayada laftirkeedu xaqiiqo ah 24kii bisha markuu dembigu dhacay xaafadda buuq gabadha baa ka dhacay waa la waayey guriga ay wax ka dhaceen guri uma dhaxayo wax guriga u dhaxayaa ma jiro waa bannaan yahay hooyada dhashay 24kii bisha ilaa iyo 25kii laga gaariyey gurigaa kama aysan shakin marnaba hadday og tahay oo isdhihi kartay xitaa ama ay malayn kartaa ama maskaxdeeda kusoo dhici kartay gabadhaadii Caaisho gurigaasaa la guday wallaahi alcadiim daaqadahooda xataa way u soo jeedaanin guriga daaqadiisu albaabkiisa cidda gelaysa waa la arki karaa 8 mitir wadda ah baa u dhaxaysa 24kii bisha wixii ka dambeeyey ilaa 25 markay soo baxeen dacayaadkii Facebooka markii la keenay Facebooka mara dhiig leh ilka la daadiyey markaas wixii ka dambeeyey baa ay tuhun galay tuhunkana waxa geliyey isla familiga gabadhu ka soo jeedo maaha hooyada waa gabadha oo yiri annaga naqaan gabadha dhiigeeda leh meesha aan u raadinayno waxani waa fabricate weeyo gacanta lagu sameeyay seebay ugu fikir weyso hooyada dhashay 24 saac bay haysay wax xitaa guriga hadday gargaraacdo oo laga furwaayo tuhun baa geli karay markaasay booliis wacan ka dhig waxay dhigi kartaa guriga halay baar waa ka shakiyay sababtoo dadkan dad kale sheegin kara ma
dad waxay ahaayeen darisa. cabdifataax waa nin dhalinyaro ah, waa ninka aad u jeedaa nin waxa weeye waa playboy, ma aha nin gabar yar oo ay daris yihiin damac ka geli karo. waa nin cas aanba dhihi karno waxa waaye oo qurux badan oo waxa weye wax ka maqanaysan jirin. gabar ay daris yihiin oo under age oo la yidhi 13 sano jira, 13 sano ninka ragga oo hamiga u geli karo hadduusan waalnin dee inagu ma garan karno. waxaan kaloo rabnaa inaan arrinta kale aan rabaa inaan ogaano oo waxa weeye aan u sheegno dadka la wadaagno waxa weeye sida ku cad ama ku xusan qodobka 161 khabiirka aan ra'yiga weydiinayno waxa kaliya oo potential oo la filan kara caddayn inay noqon karaan in xafiiska xeeraarintu uu soo gudbiyey dadkana uu ku jahwareeriyey waxay ahaayeen DNA-ga yaa garanayo wuxuu yahay. ma leenahay ma isweydiina su-aasha capacity-geeda waddan DNA France lab analyze khabiir samayn kara inteenaasu ma sheegi karnaa xataa hal qof oo naga mida inuu garanayo qof samayn kara analyse-kaas. ma haysanaa qaboojiyihii loogu talagalay, ma haysanaa waxa weeye wixii loogu talagalay inuu contaminated yahay inuusan noqon. haddaba anigoo qodobkaas ka duulaya waxaan rabaa marka ay maxkamaddu lama huraan u aragto in khabiir fikirkiisa la bixiyo mawduuc gaara sida qadiyadan oo kaleeto. intaana qodobkaa gelin waxaa rabaa France lab Puntland hay-addaa waxay keentay 2018 dhammaadkeedii waxaa dhacay falal badan oo kufsiya, xitaa keysas badan iyo ilmo laysku qabsada baa jira. ilaa iyo hadda looma adeegsan. maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan weydiiyo iyo dadka iyo xafiiska xiraanta way kiiskan looga bilaabay in la yidhaahdo France lab analyse baa la sameeyey qof baa uu soo helay dhig. way kiiskan DNA system looga bilaabay waa ayo cidda ka dambaysay in la yidhaahdo waxaa lagu tijaabinayaa qadiyadan iyadoo aan ognahay ilaa iyo in ka badan kaysas ah oo loo isticmaali karay awoodna loo lahaa haddayba aynu access u leenahay inaan DNA system isticmaalno kala saari karo. maxaa loo kala saari way? war waxaan rabnaa cadaalad inaan samayno. hadday dembi leeyihiin dembigooda eedaysanayaashaasi helaan, laakiin ma rabno sheeko gacan ku samays inay u dhibtoonaadaan 70 beri 90 beri inay u xirnaadaanin wax aysan gelin muwaakiliintaydu eed aysan gelin oo aysan luku lahayn oo gacanta lagu sameeyey. haddaba qodobkaas waxa uu sheegayaa maxkamaddu waxay dalabka xeraaliyaha ama qareenka eedaysanaha, bal si fiican u fiirsada qodobkaas waxuu leeyahay ama qareenka eedaysanaha ama iskeed bay u cayinaysaa inay khabiirka ka dhex doorato dad cayiman oo ay dhinacyadu ku heshiiyeen. inaad DNA xafiiska xeraalintu keeno oo yidhaa DNA testi baan samaynay ma annagaa qayb ka ahayn. soo transparency uma baahnin, soo xaq uma laha qareenka difaacaya eedaysanaha qodobkaa dhigaya inuu qayb ka ahaado oo goobtaa joogo from beginning ilaa dhammaadka. waa si aynu markaan rabno inaan cadaalad samayno, ma rabno dee hal dhinac qadiyad ka raran oo hal dhinac u guuraysa. garsoorkuna waa uu dhegaysanayaa waana haystaa qodobkaas. aayad baa jirta yaa ayuha nnaasu ina jaaءakum bilifki cusbatun laa taxsabu shara lakum bal huwa khayru lakum imri'in minhum maktasaba min alismi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim. war aayaddaasi waxaan u kaashanaynaa testigaa la sameeyey wain jaaءakum faasiqun fatabayanuu ya ayuha aladiina aamanu in jaaءakum faasiqun fatabayanuu banaba-in fatabayanuu. haddii uu mid idinka mida oo war beenaala ah war idin keeno waxaa loo baahan yahay inaad rumaysataan inuu arrintaa la kala caddeeyo. isla qodobkaas faqradiisa labaad waxay leedahay imaanshaha khabiirka inuu bixiyo caddayn marka sida loogu yeedho waa khasab waxaana kharashka dhiibaayo oo laga bixinaya khasnada dowladda. garmaqalkii ka horreeyey buug xafiisku xeraan intuu gudbiyey garsoorka aaway khabiirkii waaba khasab baa layihi haddii la marayo hab sharciya oo cadaalad ku jirto inuu yimaado khabiirku horteenna ka sheego wixii uu ilaahay ku og yahay oo lagu dhaariyey oo ahaa analyskii uu sameeyey inay ahayd mid saxa oo eedaysanuhu uu galay, laakiin ma uusan keenin mana noqon karto wax maxkamaddu ay u qaadan karto caddayn.
maxkamaddu waxay ku wargelinaysaa khabiirka waajibaadkiisa waxayna ka weydiinaysaa su-aalo waqtiga la dhegaysanayo afkiisa iyadoo ay goobjoog ka yihiin dhinacyada loo baahan yahay ay ka mid yihiin annaga iyo xafiiska xeeraalinta midkoodna lama samayn oo broseskaas lama marin waxaan rabaa inaan waxyaabo kaleeto oo arrintan waxa weeye macquulgal ah aan samayn karnay madaxumaba cabdifataax eedaysane hadal la yidhaahdo dembina waa galay oba la yidhaahdo cabdifataax marka waxaan idiin sheegayaa fursadaha uu heli karay cabdifataax haddii uu yahay ninkii dembigaa galay oo gurigaas 48 saacadood gabar ku haystay cabdifataax waynu garan karnaa waa qiyaasi karnaa qof dembi galay wuxuu ku jiray noloshiisa caadiga nolol maalmeedkiisa guriguu ka soo baxayay asxaabtiisu la kulmayey wax buu gadanayey waxa weeye teleefonkiisu isticmaalayey asxaabtiisuna la kulmayey normally noloshiisu caadiga routiinkaabuu watay caqliga aan isticmaalno saliimka ilaahayna siiyey ma dhici kartaa hadduusan ahayn qof bini aadana uu dhiig galay uusan ka tegin xadkii bini aadamnimada inay gabar yar ee meeda u taallo asaguna magaalada sida uu rabo ka yeelo intaa waxaan ku darayaa xaqiiqa ah oo idin sheegaya cabdifataax walaalkiis waa ninka haysta Juba Airways managerka ka ah gaalkacayo hadduu dembi galo meeshan waa gaalkacayo waa naqaana wuxuu dhiigay walaal dhibaatadaas dhacday waxa weeye talka ka xaalo waa fursada uu heli karay laakiin in isagoo guriga jooga buuga akhrisanayo loo yimaado si ay u timaado bias ay xirto la yiraahdo gurigaana qof lagu dilay awadan laga helin haba yaraatee wax raada wuxuu ikray saaxiibkiis meeshii falku ka dhacay waa gaalkacay meydka waxa la soo dhigay oo anigu aan tagay guriga hortooda gabadha horteeda waxaa moodaa in la yiri gabadhiinii war annagaa dilnay oo kufsanay oo sidaa u galnay hadiyad looga dhigay waa ay cidda cadaawadda intaa leeg ee ka dhaxaysa reer cabdifataax iyo reerkana dhibaato ma dhex marin cabdifataax wuxuu heli karay 9 saac oo habeenimo inuu gaari saaro gabadhan meydkeedu guriga u yaalo meel alla meesha uu rabo geyn karo meel alla meesha uu rabo uu inta ka qaado tayson isbagaalkacay lagu dilay ciddi shan aan la garanayn meydkooda laga hela halka ma nin baa 48 saacadood gabar guriga oo laan kara oo inta qaado wuxuu geenayaa reerka iridooda asagoo awood xitaa gurigiisa gadaashiisa xataa inuu dhigo waa lacala hadii uu dambiga galay aan ka nimaano cabdisalaan waxaan rabaa arrimo kale too oo qadiyadan ay laftikooda micno weyn u sameynayay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug baa waxay qortay warqad soo qabasho awaarna gaari taariikhdiisu tahay jiji 682 waxay amar ku siisay gaariga in la qabto gaarigana waa gaarigii hooyadu sheegtay arintiisii gaarigaas meel ku dambeysay lama yaqaan gaarigaas waxa la yiri waa gaarigii dhibaatada geysay Aisha lagu kufsaday waa maxkamadda darajada koowaad waana haynaa warqadaas oo waxa waaye ku saxiixan yahay garsoorihii iyo kaaliyihii maxkamadda darajada koowaad dadweynahana waa la wadaagi doonaa sidoo kale waxaanu haynaa cabdisalaan 1 saac ka hor buu guriga ka baxay waa bare 580 arday buu waxa weeye iskuul u dhiga xisaabiyana ka yahay 6 arooriyo buu ka tagay 1 saac iyo barna shaqadiisu joogay waxaanu warqad ka haynaa oo maxkamadda horteeda lagu daariyay maamulihii iskuulka oo sheegay xilligii uu shaqada soo galay iyo xilligii uu ka baxay waa nin musalliya waa nin wadaada waxa sumcadiisii looga dhacay iyo sharaftiisii iyo bulshada ku dhex lahaa eed uusan gelin ma jirto xataa cid waxa weeye remedisiinka magdhow inta loo geystay kuma noqon karo shaqadiisii maxay ka aamini doonaan ardada inta 520 boqolkiiba 80 ay gabdho yihiin waa meel ka dhac weyn waxaa jirtay in arrinka la rabaa garsoorka la wadaago ninkan markii cabdisalaan ninka la yiraahdo tanaha cabdisalaan laanta BSF waxay damacday inay sii deyso aabaha dhalay wuxuu yiri lama sii deyn karo taakiidinaya ilaa uu cadaalad helo maxkamadda in la sii daayo halkan la keeno waxa sabab u ahaa aabaha dhalay Cabdiraxmaan meeshan sabab uu ka soo galo keeskan 24 ilaa 25 bisha markii la qabanayo iskuulka laga qabtay lagama qaban guriga waxa uu tagay inay yasintunay oo yiri waxaan rabnaa guriga inaan loo furto ninka la Cabdiraxmaan Faruux Umar Afdal laanta waxa waaye isla ka tirsan guriga noo fur sidaas yahay sidoo ku yimi inta guriga iskuulka laga keenay lama oran dambigaas gasho lagu haysta markii guriga la keenana waxa la su'aalaan ku weydiinana waxa noo raacdaa xarunta BIS
warqadan waa tii aanu ka qornay qiraalka ahayd nuqulkeedi masiis maamulaha masiis iyadoo originaal aan isiinaynaa oo ku qoran fartiisi sidoo kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno garsoorka iyo dadweynaha guddoomiyaha gobolka nugaal mudug wuxuu sheegay in dad loo qabtay qadiyaddan iyo intaan la eedeynba dadkan ilaa iyo haddana meesha ay ku dameeyeen dadkaas lama garanayo meel alle meel ay ku dameeyeen lama garanayo intaa iyo wax ka badan oo waxa weeye difaacayaga iyo qadiyaddanba micno weyn u sameynaya waan haynaa maxkamaddu waa mahadsan tahay horkeena maxkamadda annagaa leh maxkamadda sharafta leh qareennada su-aal hayay su-aasha oo ah hay-addan la yidhaahdo hay-adda forensiga sayniska ee garowe dowladda puntland ee soomaaliya ma hay-ad dowladeed ba mise waa hay-ad barabati ah iyo waxa ay qabato iyayna jirta iyo in kale hay-adda maxkamadduna waa mahadsan qaran 161 baan ku qaaxay haddii ay jirto maxkamadan haddii ay jiro forensic lab analysis khabiir ah waxay ahayd garmaqlkii ka horreeyay in la keeno la hor keeno waa haddii ay jirto qodobkaad indhigaya waa aad akhrin kartaan khasab bayna ku ahayd inuu qiraal ka furo halkaas haddii uu ku maqan yahay sababtuu ku maqan yahay isagaa noo sheegay maxkamadda sharafta leh qareen mustafa wuxuu yidhi ciidanka way dhigi karaan xataa qarax haddii qof loo rabo dembi waa ciidankii amniga maxkamadda hay qortaan waana loo qoray qareenka isaga a tahay iyadaana ciidamadu meeshay qarax ka dhigaan ama ay ku dhigi karaan iyo qof ay dembi u samayn karaan caddaynteeda isagaan ka rabnaa maxkamadduna hanoo weydiiso halka ay qarax ku dhigeen iyo halkay qarax ku dhigi karaan iyo qofkii la rabaan inay dhigi karaan su-aasha xerrihii weydiinoo ka jawaabaya horta xerriya wax fiican inuu fahmo su-aasha say udhigan tahay iyo qaabkay udhigan tahay anigu ma oran ciidankaa wax dhigay haddaad maqashay waa fal dhacay oo lasoo dhaafay waa dhigi karaan baan ku yidhi waana bini aadan iyagoo raba qofkii inay dembi u sameeyaan wuxuun dembi waa la gelin karaa wuxuun dembi u eg waa loo samayn karaa qof bini aadanka maxaad qoysa waxaan rabaa garsoore ma la ogolaan karaa inaan ka jawaabo su-aashaas ma aanaan jawaabin aan jawaabno waa dembi uu ku jira qareenku ciidanku qarax way dhigi karaan maxkamadda horteeda ku yidhi tallaabada uu mudan yahay ha ka qaado sharcigu qaanuunku waafaqsan yahay maxkamaddu ha ka qaado intay maxkamaddu tallaabo ka qaadaysana xafiiska xelaalintu wuxuu laalay koogistiisii dacwaddeeda maxkamadduna waa mahadsanta caaisho marxuumadda meeshii ay ku dhimatay aad tiri qarax way dhigi karaanin xeeraalintuna kugu qabsatay ka noqo waana ku leenahay maxkamadda kuu soo jeedinaynaa raaligelinna ka bixi hadalkaas haddii uu xanaf lahaa waa ka raaligelinayaa hadalkaasoo ah ciidamadu waxay gelin kareen qarax ama wax ka weyn oo dhibaato ah ama wax la rabo in dembi loogu sameeyo muwaakiliinteeda bay ahayd bay dhigi kareen waa ka noqonay maxkamadda raaligelin baa ka bixinaa taas waa mid iyo ciidamada dhan tan kale waxaan maxkamad ka codsanaynaa in laftigiisa xeeraryaha guud kayska uu dembiga uu saaray muwaakiliintayada uu isla warbixin ka bixiyey maxkamadda horteeda
garsoore maxkamaddu waa dembi wuxuu galay maaha raaligelin maxkamadda sharafta leh. ciidamadu qarax bay dhigi karaan, ciidamadu waa kuwa aanu ku joogno ku hurno uu ku seexdo amniga. inaanu halka gar ku gallo waxay ahayd ciidamadii saamaxay wey, kuwa qaraxa ilaaliya wey. maxkamadda taayada qoraalkeedii dacwadeeda dib baan usoo waa ka hadalay dib baan usoo gudbinaynaa. abiil baan ka qaadanay, abiil baan ka qaatay, laakiin anagu sida aan ugu dhawaaqnay ka noqon mayno. abiil baanu ka qaadanay. qoraalkan waxaan ka doonayaa maxkamadduna waa mahadsanta. okay, maxkamadda sharafta le waxaan rabaa su-aale inay ii weydiiso eedeysanayaasha. eedeysanaha koowaad cabdifataax iyo cabdishakuur iyo cabdisalaam, saddexdaa eedeysana su-aalihiina waa u soo gudbiyey maxkamadda. qareenka kuwaasi ka jawaabi karin baa jirto shaksiyan aan u weydiinayno, ma shaksiyadiisu yaqaan. aqoon iyo garasho ma u leeyahay caaisho? ma ka jawaabi karaa qareenka? aqoonta iyo garashadu caaisho u leeyahay eedeysana cabdifataax, maxkamadda hay u weydiiso. maxkamadda waxaan u sheegayaa muwakilkayga cabdifataax su-aasha la weydiiyo oo aqoon ma u leeyahay. cabdifataax iyo marxuumaddu waxay hayeen deris, dad derisa. wax aqoon derisnimo oo ka aqoon kore ka baxsan ay wada lahaayeen ma jiro. wax xiriir hoose aan ahay ma jiro, laakiin aqoonta derisnimada dad guri uusan waxba u dhaxayn oo derisa dhowrit waliba muddo 6 sano deris ahaa bay hayeen. caaisho maxay ahayd? ma ardayad bay ahayd, ma gurijoog bay ahayd? su-aasha waa weydiisay. caaisho ardayad bay ahayd. iskuulkee bay dhiganaysaa caaisha? taasi daruuri maaha inuu ogaado waalidkeedi ma asaguna ma uusan geynin iskuulka kama soo qorin, laakiin dadku waxa weeye hortiisa way martaa iyadoo dariiska iskuulka marta. caaisho imse jir bay ahayd? sida eedda ay kusoo qortay caaisha 13 jir baa ku sheegay. ma garan karo asagu dhimahayo waxa weeye birth certificatekeedi waa sax. eedeysana cabdishakuur baa anigu wakiili maahay cabdishakuur. eedeysana cabdishakuur ma ka mid ahaa dadkii wax ka raadinay? maxamed dige marxumed caaisha imse maalmood ayaa la lahaa? casho inta maalmood ay maqneed aniga maa daruuri inay weydiisay dambaaraha iyo dowladda weydiin ka dhaa. aniga gurigayga laga xirtay, waan ku wareysanna oo lagu qaaday, weli alaana aan ku baaqaa. maxaa lagu soo xiray? waxaa la igu soo xiray tuun macnaa gurigayga sida nimankaa guryahooda loogu yimid oo kale b s inay ii yimaadeen, cumar afdheere iyo b s ina tumay oo wixii meel ka socdaan aqoonin. gurigayga inta lagu yimid waa ku wareysanayna laigu kaxaystay, jirdilna igu geystay ciidamadu b s taa difaacaysa. jirdil dhagayga hadda dheecaankuy madaxdu ka daayaan, korontada madaxayga dhaawacyada ku yaallay jirkaygana aan caddayn doono. habeennimadii caaisha la la'aa adiga cabdifataax ma wada joogtay? gurigaygaan ku sugnaa anigu. caaisha ma tiri caaisha taariikhdu markay ahayd 24 dukaan la yidhaahdo dayax show iyo jalaato ka gadanaysa oo waa arkay. ilaahay baa been u sheegtay xeel ninka la yidhahdo anigu kolle ima aqaan waxaa tahay ma garata. naftaan anu been u sheegin, sharciga islaamkaan uga baxayaa. nin weyno carruuro iyada laaleeg iyo kuwa ka yaro aan dhalay baan ahay ma garata. ma oran deriska oo dhanna way yaqaanaa waxaan ahay qof islaama, waxaan ahay ina maxamed diga haddaan ahay xeer ilaali. cabdifataax maxaa wadaagtaa nin eedeysanaha saddexaad oo magaciisu yahay
cabdisalaan cabdisalaan waa walaalo iskooyo iska abbaa adiga cabdifataax yaa wey isagaa wey cabdisalaan baa wey meeqa sana jirtaa 32 sano jir baan habeeyey kama mid ahayn because shaqadiisuu joogay iskool buuna dhigaa hawl baana ka dayacnay ma garan karo aslu su-aala ma ninkan u shaqaystu ahaa saan hore idinku sheegnay ma garan karo mana arag meel lasoo dhigay waa sa eedda ku sheegteen idinka laftigiinu dadkaan wareysanay san eedda aad kusoo dhigteen weye annagu taasaan tixraanay eedda aad soo dhigteen qaafka usoo qaabayseen iyo dadkii meeshaan ugu tagnay qasabnaa isagu inuu ogaado ma oran mana oran karo deris baan nahay oo labada iyada guri way isu dhowaayeen iyo caaisho inta lalahaa ma garanayo labada eedeysan oo walaalaha ay ku jawaabeen waa mid caddayn buuxda ku ah waayo guriga la deriska ah gabadhaas oo lama maalmood lalaa maxay uga warheli waayeen waxay ka mid ahaayeen dadkii raadinayay taa iyada ah haddaba caaisho waa la dilay waxaa dhacay dembiga dhacay wuxuu ahaa afduub kufsi dil afduubka wuxuu ahaa adeegsi xoog ku haysasho guri adeer ka leexda marka meesha halkaasaan wax sameynaya kaamerooyinkiin oo dhan iga leexiya adeer markaan naga leex markaan naga leex sida maxkamaddu halkaa ay ka aragto 10 eedeysane hay-adda c i d du waxay u samaysay number iyo magacyadooda oo gaagaaban masalan eedeysanaha koowaad cabdifataax cabdiraxmaan warsan waa c c w waxaa ku xigo b d buugga dembiyada /12 xariiqin a/2019 tobanka eedeysanada sifahaas ayay c i d du u soo habaysay sawiradii marxuumadda weeye sida ku qoran
warqaddii isbitaalka marka marxuumadda la geeyey 3 dhakhtar ay qoreen. marxuumaddii markii la keenay isbitaalka gaalkacyo waxaan ku sameynay baaritaan la xidhiidha ogadeeda jidhka ah oo dhan, gaar ahaan xubinta taranka. 1 jidhka guud ama oogada sare waxaa jira dhuunta calaamad muujinaysa ama u eg ceego sida xagtimo iyo madoobaad. waxaa kaloo ka muuqda wejiga barar iyo madoobaad jirdil ah oo beddelay muuqaalka wejiga. waxaana jira dhiig ka imaanaya afka iyo sanka. soo jeedka jidhkeeda oo dhan waxaa ka muuqda jirdil iyo jugo fara badan oo saameeyey madoobaadka iyo deligmo dhaadheer oo guduudan sida xabadka, caloosha, bowdada. wax dhaawac furan ama meel la jeexay oo jidhka kore ah ma jiro. xubinta taranka waa furan tahay oo bikro ma jirto. waxaana jiray dhiig cadhun ah oo ka imaanaya xubinta taranka iyo murux guduudan oo wareegga farjiga. tani waa warqaddii dhakhaatiirtu soo qoreen oo 3 ah. tobanka eedeysane hay-adda forensiga sayniska ee dowladda puntland waxay ka qaaday 37 sambal. waa 10kooda. 3 ka mid ah yuu soo caddeeyey inay dembiga si buuxda u galeen. haddaysan gelin cabdishakuur, cabdifataax, cabdisalaam maxay ula mid noqon waayeen 7? maxay ula mid noqon waayeen 7 kale? shaybaarka 37 sambal la qaaday waxaa loo diray nairobi. ninka sawaaxiliga ah ee soo baaray ma 10 eedeysan u kala garanay? ma aqoonoo ma lahayn. 3dooda sababta looga soo saaray 37 sambal waa caddeyn buuxda. waxaan akrinayaa qoraaladii forensic science. hay-addani waa hay-ad dawli ah. waa hay-ad dawli oo puntland ay leedahay. hadday qareennadu inkirayaan ama aysan aqoon u lahayna haddaan u sheegayna. hadday inkirayaan hay-ad ay inkiri karaan ma aha. waa hay-ad dawli ah. hoggaanka dembiyada baarista c i d da ee gobolka mudug waxay ku sugnaayeen xarunta b s f ta ee gaalkacyo halkaas oo meesha lagu hayo 10. waxaa ka dhacay magaalada gaalkacyo maalintii isniinteed 25 february 2019 arrin muruga leh oo ah kufsi dil loo geystay gabar yar oy da-deedu tahay 13 sano jira. waxaa la qiyaasayaa in gabadhaa yar ay geeriyootay saacadihii waa beriga ahaa ee isla maalintaa ay masiibadaasi dhacday. hay-adda forensiga sayniska ee dowladda puntland waxaa la soo gaarsiiyey fariintii
fariintii dhacdadaa isla subaxii markii meydkii la helay meydka caaisha waxaa sidoo kale hay-adda laga codsaday si deg deg ah inay ku tagaan gaalkacyo si ay u ururiyaan wixii cadeymo laga soo qaadi karo qof walba baaritaanka u noqon kara muhiimna ay ka mid tahay gabadhii geeriyootay iyo wixii kale ee lasoo qaadi karo goob kasta oo iyana baaritaanka muhiim u ah. hay-addu way aqbashay codsigaas ka yimid taliyaha hoggaanka baarista dembiyada ee ciidanka booliiska dowladda puntland. waxaana ay shaqaalihii hay-adda 3 qof ay gaareen gaalkacyo 8 fiidnimo isla maalinta isniinta ah. howlqabadkii hay-adda goobihii dembiga la xidhiidhsanaa shaqaalaha hay-adda waxay gaalkacyo ku sugnaayeen qiyaastii muddo 35 saacadood ee maalmihii isniinta iyo talaadada taariikhduna ahayd 25 ilaa 26 february 2019. howlihii ay soo qabteen dhammaan goobihii dembiga la xidhiidhay waa sidan: xusitaan. waxaa la qiyaasayaa markay gabadhu dhimatay iyo markay shaqaalaha hay-adda ay cisbitaalka gaareen inay u dhexaysay qiyaastii 20 saacadood. isniin 25 february 2019 intii u dhexaysay qiyaastii 8:15 ilaa 10:15 fiidnimo shaqaalaha hay-addu waxay ku sugnaayeen cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo halkaas ay ka soo ururiyeen samballo ay tiradoodu gaarayeen 15 gabadha dhimatay kuwaasoo loo isticmaalay in laga soo saaro maadada xagga biologiga DNA si loo helo caddeymo dadkii dembiga geystay ama aanan geysan si loo kala caddeeyo. samballadaasi waxay ka koobnaayeen kuwo laga soo qaaday gudaha gabadha, daanka gabadha, luqunta dhaawaca ku yiil, timaha, cidiyaha, dharka ay gabadhu qabtay iyo walxo kale. talaadadii 16 february 2019 intii u dhexaysay qiyaastii 10 aroornimo ilaa iyo 5 galabnimo shaqaalaha hay-adda ay weheliyaan taliyaha iyo taliye ku-xigeenka hay-adda CID-da hoggaanka dembiyada baarista ee gobolka mudug waxay ku sugnaayeen xarunta ciidanka BSF-ta ee gaalkacyo halkaas oo ah meesha lagu hayay 10 qof oo lagu tuhmayey inay xidhiir la lahaayeen kufsiga iyo dilka loo geystay gabadha yar. shaqaalaha hay-addu waxay ka soo aruuriyeen samballo ay tiradoodu gaarayso 37 waa 10 eedaysane 37 sambal ayaa laga qaaday. 37dii sambal laga qaaday eedaysane cabdifataax, eedaysane cabdishakuur iyo eedaysane cabdisalaam ayuu ku caddeeyey inay dembiga si buuxda u galeen. 7 kalena wax saameyna uu ku leeyahay, wax dembi aan ugu haynaa samballadan qaadnay ma jirto ayuu yidhi. axaddii talaadadii 26 february intii u dhexaysay qiyaastii 5 galabnimo ilaa iyo waxaan dadka la socodsiinaynaa qofkii baxaya waa inuu fartaagaa si idan loo siiyo. booliskuna waa inaysan ogolaan qof intuu soo fadhiista iska kaca.
talaadadii 26 february 2019 intii u dhexaysay qiyaastii 5tii galabnimo ilaa iyo 7dii fiidnimo shaqaalaha hay-adda ay weheliyaan taliyaha iyo taliya ku-xigeenka hoggaanka baarista dembiyada CID-da gobolka mudug iyo ciidan ilaalinaya amnigooda waxay baaritaan ugu tageen 2 goobood. goob ka mid ah labadaas ayaa u muuqatay mid muhiim u ah waxaana laga soo arooriyey samballo ay tiradoodu gaarayso 6. samballadaasina waxay isugu jireen kuwo laga qaaday wax dhiig la moodo, dhar iyo dermo. axaddii 3 maars 2019 qiyaastii 10kii aroornimo ayaa waxaa qof samballada lasoo ururiyey. shaqaalaha hay-adda muddadii ay joogeen gaalkacyo waxay ku guulaysteen inay soo aruursadaan samballo aada u tiro badan kuwaasoo laga soo qaaday marxuumadda iyo dad iyo goobo dembi ka dhacay goobta dembiga uu ka dhacay. tusaalaha 1 iyo 2 laba tusmo waxay muujinayaan samballada ugu muhiimsan loona isticmaalay. maxkamadduna waa haysataa taayada. muuqaalada samballada laga soo arooriyey. muuqaalada soo socda waxay muujinayaan samballadii laga soo qaaday gabadhii dhimatay, dadkii lagu tuhunsanaa dembiga iyo guri loo maleeyay inuu yahay goobtii uu dembigu ka dhacay. waa sawirada 1, 2 iyo 3 oo halkaa ku sawiran. baaritaanka 1 ee ka shaqaynta samballada dhacaanada ka muuqdeen. dhacaanada lagu arkay dharka gabadha ayaa baaritaano saynis lagu sameeyey si loo hubsado walxo dhinaca biolojiga ah ee ka yimid gabadha ama ragga lagu tuhunsan yahay inay dembiga geysteen. dhacaanada la baaray waxay isugu jireen dhiig, shahwo iyo candhuuf. natiijadu waxay muujinaysaa in dhiigga baaritaanada dharka lagu arkay laakiin wax shahwo ah aan la arag. waxa iyana dharka lagu arkay candhuuf dabeed. fiiri sawirka 5. baaritaanada DNA-ga ee samballada la hubiyey. inta aan loo gudagelin baaritaanka DNA-ga waxaa la hubsaday in dhiigga lagu arkay dharka uu yahay dhiig dadeed. fiiri sawirka 4 kaasoo ka yimid gabadhii dhimatay. sidoo kale waxaa la hubsaday in dhacaanada candhuufta ay iyana yihiin kuwo ka yimid dad. fiiri sawirka 5. waxaa dhacaanadaas laga waayey kuwo shahwo ah iyadoo la isticmaalay 2 hab oo kala duwan. waa dharka gudaha gabadha maaha, waa dharka waxa laga waayey. kadib markii la dhameeyey hubinta samballada ayaa waxaa si gaara loo baaray DNA si loo hubsado dhacaanada candhuufta ee lagu arkay dharka gabadha inay yihiin rag ka yimid, waana la hubsaday. sidoo kale waxaa baaritaanada DNA lagu sameeyey samballo dheeraada oo laga soo qaaday cidiyaha iyo qoorta gabadha. fiiri tusmada 1. bal in la helo DNA-ga rag ka timid waana la helay.
markii la hubsaday helitaanka d n a-ga rageed ayaa kadib waxaa si gaara loogu dhaqaaqay in la baaro meelo gaara ee kromosoomka ragga gaarka u ah ee loo yaqaan wayda way oo bracket ku jirtana walo meelahaasoo ragga kala saari kara marka laga reebo ragga wada dhashay iyo kuwa isu dhow iyo xagga aabbaha dumarka iyagu ma laha kromosoomyada wayga halkaa waxay ka leeyihiin x intaa kadib saynisyahanadu ka mida shaqaalaha hay-adda iyo kuwa kaloo ka shaqeeya hay-adaha kaleo nairobi kenya ku taal waxay si buuxda uga howlgaleen d n a-nada samballadan ragga ka yimid ee laga helay dharka gabadha dhimatay gebi ahaan waxaa samballada looga shaqeeyey si waafaqsan qaybo ka mida cilmiga sayniska ee hidasidaha gaar ahaan maadada d n a-ga sida jirta qof walba waxa uu kalabar d n a-diisa ka dhaxlaa hooyada kalabarka kalena wuxuu ka dhaxlaa aabbaha d n-ada qofka weliba waa mid isaga u khaasa qofna qofka kale la mid maaha arrintani waxay si gaar u sifaynaysaa marka la isticmaalay kromosoomada tartanka la xiriirsan hase yeeshee inta u badan ee baaritaanada kiiskan waa kuwo lagu saleeyey kromosoomka taranka ee wayda kaasoo ragga keliya ay leeyihiin haddaba marka la baro d n-da sambal ka yimid walxo la xidhiidha qof dembi loo geystay dhibane ama samballo ka yimid walxo la xidhiidha qof dembi lagu soo eedaysane waxaa lagu xaqiijin karaa d n a in walxahaasi la baaray ay qofka ku xiriirin karaan inuu dembigu lug ku leeyahay ama ay ka saari karaan inuusan dembigu wax lug ku lahayn fiiri sawirka lixaad haddaba natiijada eedaysanaha afraad ilaa eedaysanaha tobnaad diyaanonadoodii marka gabadha la barbar dhigay waxba laguma helin balse eedaysane cabdifataax cabdiraxmaan eedaysane cabdishakuur eedaysane cabdisalaam qalin cas baa ku qoran si buuxda ayay dembiga u galeen waa ka calan cas baa ku qoran maxkamaddu si fiican ha u fiiriso qalin cas baa ku qoran si buuxda ayay dembiga u galeen marka la barbar dhiga d n a-ga gabadha laga qaado sidaasay ku yihiin kuwii dembiga geystay qafaashay kufsaday dilay marxuumad caaisha maxkamadda sharafta leh cabdifataax cabdiraxmaan warsame maxkamadda ha ii soo istaajisa hadda ha weydiiso maadaama projecta kuu shidmi waayo ma tahay
cabdifataax mise maaha maxkamaddu ay u weydiiso mahadsanid anaa dooda wataa hadalka joojiya qofka wata maahe سنة عبد الفتاح وكور انت محكمة الصور كيانوي gacantii samidi korkeeda waxaa ka muuqdo waxa lagu jeexay awamalis xaqiiqa maxkamadda waa jilibkiisa midig ruugga halkaa jilibka waxaa ka muuqdo bar madow oo muruxa dhinacan soke halkan waxaa ka muuqda halkaa jilibka oo gudaha ah murux kale lugta bidix jilibkeeda maxkamadda sharafda halkaa jilibka ah waxaa ka muuqda meel ballaaran oo madow muruxa gudahana sidaas oo kale waa lugta bidix jilibka midig si toosa ayuu hadda u muuqdaa waana derituu gabadha saa ugu hayay yuu ku murxay xabadka waxaa ku yaala 3 xagtin yaa ku taal baaraha xagtinta koowaad bar madoowe 2 baroo madoowe waa astaamaha lagu barto ku siin waa astaamaha caddaya ku siin waa leysana cabdifataax cabdiraxmaan kaas waa marxuumadii dhaawacyada cabdifataax gaaray waxay ku gaareen caaisho dilka awgiis isaga iyo labada eedaysana ilkahadu waa jijaban inkaasi waa madowda waxaa ka muuqda ciidi sida ku qoran warqadda dhaqtarka boodiyaheedii weeye jilbaheedii caaisha waxaa ka muuqda muruxyo xagtimo yaa ka muuqda waa marka cabdifataax kiiskan uu gelayay calaamadihii kufsiga cabdifataax waxaanu haynaa dhacdadaas oo aanu ku kaamilayno TNA-ga tii sayniska uu soo caddeeyey waxaan kaloo xeerlaalahaan ku kabeenaa astaamihii hadda xagtimaha jilbaha
eedeysanaha koowaad cabdifataax cabdiraxmaan warsame. eedeysanaha labaad cabdishakuur maxamed dige. eedeysanaha saddexaad cabdisalaam cabdiraxmaan warsame. markii eedeysanaha koowaad labaad oo ah cabdishakuur maxamed dige wax laga qoray, wuxuu sheegay inuusan gelin dembiga ayuu sheegay. wuxuuse caddeeyey in isaga iyo eedeysanaha koowaad oo ah cabdifataax cabdiraxmaan waa eedeysanaha labaad, wuxuu sheegay in eedeysanaha koowaad cabdifataax cabdiraxmaan warsame ay wada joogeen habeennimadii laba marxuumad caaisha 10kii fiidnimo ilaa iyo 3:15 saqdan ee ay wada joogeen, kuna sheekaysanayeen kaabadda guriga cabdifataax iyo cabdisalaam ay wada deganayeen. wuxuuna sii raaciyey inuu marbakacayay cabdifataax oo uu soo noqonayo isagoo ay ka muuqato dhidid badan, sigaar badanna wuu cabbay. cabdifataax wuu qayiraa, laakiin habeenkaa muusa qayida. qabowna waa dhacay, cabdifataaxna waa digidi. waa dhacdo aan ku tabi DNA. eedeysane cabdishakuur subaxnimadii gabadha maydkeeda la geeyey cisbitaalka wuxuu soo wacay marxuumadda hooyadeed, wuxuuna ka soo wacay telefoon gabadh ardayad ah la yidhaahdo zahro ibraahim oo deris la-ah. wuxuuna u sheegay in xabaashi, hadda wuxuu u sheegayaa marxuumadda hooyadeed in caaisho qabrigeedii diyaar yahay ee loo baahan yahay biyo iyo kuuso, balse hooyada marxuumaddu waxay ugu jawaabtay hawshaas aniga iyo markaa. eedeysana cabdishakuur walaashii oo la yidhaahdo shukri maxamed dige ayaa waxay wacday maryam cabdulle dulxan oo joogtay isbitaalka gaalkacyo. marka sababtay maryam u joogtan ay ahayd dhimashadii marxuumad caaisha, kuna tiri shiine ayaa isoo wacay. shiine waa eedeysanaha labaad cabdishakuur, oo wuxuu igu yidhi sadaqayso lacagta qabriga ee walaalay ma wada heli karo lacagteed, qaar bixi. kadib lacagtii qodista qabriga waxaa wada bixiyey shukri oo ah shiine ay walaalo yihiin iyo maryam iyo fahim. lacagtaasna waxaa lagu shubay mobaylka shiine eedeysanaha labaad. waa caddayn. eedeysana cabdishakuur wuxuu yidhi marxuumad caaisha saacaddu markay ahayd 11:00 waxay jallaato ka iibsanaysay dukaan la yidhaahdo dayax shub. ujeedadiisuna waxay ahayd marhabaabin uu marhabaabinayo kiiskaasa. eedeysanaha koowaad cabdifataax cabdiraxmaan warsame waxaa ka muuqda oogadiisa calaamad ugu garto inuu jiro kubsi. gacanta bidix, labada jil, xabadkiisa, jilbaha dhinacyadooda intaba waxaa ka muuqday madaxiyo. maxkamadda sharafta waxaa dhacay dembigu 3 elementigu ka kooban. waa qasdi, waa ficil, waa natiijo. eedeysanayaashu waxay rabeen inay kufsadaan caaisha, way soo qafaashay qasdigooda. ficilkii bay sameeyeen, way kufsadeen. natiijadii ka timidkiina waxay ahayd sababta caaisha loo dilay. cabdishakuur waa 46 sano jir wey.
caruurtiisaa caruur sii dhashay caaishana waxay la da-ahayd kuwa awowlabaadka u yahay fawaaxishnimadaas iyo ceebta uu ku kacay darteed caaisho hala khaarijiye ayay ahayd waa baabiin laakiin xaq iyo afka la qabta teeruhu ayuu ka dilaacay waxaa hubaala maalinta yowmalqiyaamana ilaahay uu noo soo istaajinaya saddexdaa eedaysana in d n a-gu ay ku caddeeyeen inay kufsadeen caaisha cidiyaheedii laga helay maqaalkoodii maalintii yowmalqiyaamo ilaahay taasuu ii soo taagaya waana loo hortagaya dembiga si buuxda ay ugu galeen maxkamadduna waa mahadsan xeeryadiyuhu kiiskiisuuna ka arrintaa lagu eedeeyey oo ah jilbaha iska daas caadi u hadal jilbaha in madax kaa gaaray haddar qalenkaaga waa muujiyey laakiin adaanu ku weydiinaynaa jilbahaaga iyo xabadkaaga iyo gacanta iyo ayaantaa in marka xariiqo gaareen xilligaas lagu soo qabtay lagaa helay ma jirtaa mise ma jirta jilbaha tusader tus haddana tus gargaraysa saar haddee snap sheeg dada wax sheeg cadeef iyo hada dacaan iyo dada cadeef iyo anigu kana qaramahay كيف هذا السؤال؟ هذا الرجل كذا
tan kale waxaa caddayn u ah cabdifataax iyo cabdisalaan iyo ninka la yidhaahdo diga inay xiriir leeyihiin bal telefoonadooda ha la fiiriyo intay inay lacag isu diraan inay iswacaan inay xiriir gaara leeyihiin taas waa mid tan kale nabarka cabdifataax soo gaaray waa idin sheegay warqadda word baa lagu qoray waxaan kaloo caddaynaya garsoore kaadi daas dheneegu soo qabtay adigu baaristaa dheer oo la maray toddobada kaley soo qaban lahaayeen haddii ay wax iskaga dhacayaanin marka eedaadana hadda saddexdaasaad ka hadlaysay toddobada kale baa la rabaa inaad u gudubtid oo ka hadashid qareennada u doodaya difaacaya eedaysanayaasha ku eedeysan kiiska marxuumad caasho ilyaas aadan hadalka nuxrurkiisa xeeraaliyaha wuxuu ku doodayaa oo lafdhabar u ah in ay dhacaanadii la qaaday saddexdaa nin ay yihiin nimanka gabadhaa dilay isticmaalay intaa marka waxaad kaga jawaabi lahaydeen baa laydinka rabaa wuxuu sheegay in 3 gabdhood ay lacag bixiyeen hor 3 gabdhood lama hayo wuxuu kaloo sheegay in islaan ka mida islaan ay hilib u dirtay maya laga hadli maayo waxaa iska cashwaayiga siidaa kelimada lafdhabarta ah oo saddexdaa nin uu toddobada kale kaga soo saaray waxa weeye baaristii la qaaday meesha lagu soo baray nairobi miya nairobi lagu soo baaray inay hidasamihii laga helay nimankaasu gabadhaa inay isticmaaleen dhimashana ay ilaa heerkoodu gaaray inay dhimato marka intaas oo kooban jawaab ka bixiya waxaan kaga bixinaynaa bismillahi raxmaan raxiim mudane guddoomiye garsoorayaal qodobka 161 ee xeerka habka madaniga xeerka ciqaabka Soomaaliyeed ayaa sharaxaya tikniishka iyo waxa dheer iyo khubrada dheeriga ah horta ummad madoobe Allah ku yaqaan wax xeeruhu meesha keenay baan aaminsanayna tahay tan kale annaga muwakkiliinteeda si dhiib ah waraysan wuxuu sheegay in shahwo laga qaaday shahwadii inay ku dhacay shahwadii waxay noo sheegeen muwakkiliinteedu inaan wax shahwo ah oo laga baaray aysan jirin
xeerlihuna wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay lambarradaa saddexdaa qof farcas baa ku qoran, farcas baa ku qoran. wixii faahfaahin oo intaa dheer xeerliya waxaa sheegay waxaa sheegaya madmadow allah ku yaqaan. waxaan u leenahay who knows yaa garanaya, ma aniga medical, ma adiga khabiir ah DNA ah, mase garsoorka mase qareenka, cid garanaysa oo jirta ma jirto. maxkamadduna waxay u baahan tahay waxay u arki karto xaqiiqa inay tahay oo cadaaladna lagu heli karo, eedaysanayaashana dembigooda lagu caddayn karo. DNA-da markay noqoto horta waxaan weydiinaynaa xeeraalyaha hay-addan DNA forensic lab puntland sharciyadeeda xilligii la sameeyey oo sharciyadda ay ku fadhido oo ay tahay hay-ad dawli ah waa inuu horta maxkamadda hor keena. midda labaad qodobka isla qodobka 161 annagaaba u fududayn lahaynba haddii wuxuu noo ogolaanayaa inaanu daraf ka nahay, goobjoog ka nahay, khabiirna aan lacagtay inta la baxno keeni karno. hadday ku caddaan lahayd maxkamaddaas maxkamadda horteeda annaga ayaanba meeshaas imaaneen, hay-adda xeeraalintana annagaaba u fududayn lahayn go-aanka garsoorka. laakiin ma jirin, transparencyna ma ahayn, mana aanan garanayn. hay-adda ninkii madaxda ka ahaa waxaa la yidhaahdaa agaasime ku-xigeenkeeda yaasiin siciid faarax murushris buu joogaa, ma joogo. ninka agaasimaha kaana cabdirashiid baa la yihahdaa, maraykan buu joogaa, maraykan meeshii la yihahdo buu joogaa. DNA la yidhi waxaa lagu soo qaaday suufka dhagaha lagu dhukeeyey, dheecaan baa dheecaan goos looga soo qaaday, leyla calaawi baa laga saarayaa, gaalkacyo garayaa la keenaya ayadoon lahaynba qaboojiyaashii loogu talagalay, ayadoo aysan joogin garsoore maxkamad ka socda markii la qaadayey inuu yahay mid dameeraad iyo xawayaan yahay. yaa garanaya who knows, cid garanaysa ma jirto. cadaalad baynu u baahana wuxuu inuu cad yahay. DNA-ga laga soo qaaday gaalkacyo oo lagu soo qaaday leyla calaawi inagoonba excess lahaynba. war nimankii hay-addan ka ahaa madaxda ta ku fashilmeenay garan waayeen waxay ku sheegaan bay maraykan iyo murushris u kala carareen. haddii khabiir DNA uu maanta joogi lahaa laguma murmeen, ma midow allah ku yaqaana lama yidhaahdeene waxa uu yahay baa la kala saari lahaa. waa noo kow maanta inuu yidhaahdo nairobi baa loo qaaday iyo puntland baa waxay leedahay forensic lab, laba isqaban kara maaha. ereyga uu isticmaalayo mar walba kusoo celinaya xafiiska xilaalinta waxid waa loo malayn karay, waxaa loo malayn karay guriga uu galay, waxa loo malaynayay dhiig. haba yaraatee DNA-gaasi sifo sharciya uu maxkamadda u hor yaallo, forensic lab analyskeedii hor yaallana uu yahay mid saxa, haba yaraatee ma jirto. qaanuunkuna ma sheegayo oo ma dhigayo. qodobka 161 baa mamnuucaya annagoon qayb ka ahayn, eedaysanaha oon joogin, garsoore maxkamadeed oon joogin. DNA baa sheegay, waa waxa dadka caamada ay ugu qiraan markhaati oo ay leeyihiin dadkaasi waa dambiilayaal ayagoon garsoore maxkamadeed oo go-aan ka soo saaray ay jirin. hadda kuwa daawanayana ay dhihi doonaanin DNA baa soo sheegay. wax DNA la yidhaahdo xafiiska xeeraalinta forensic lab analysis xaqiiqaa oo cadaalad ku fadhiya hor keenay, hortiinana waa joogtaaniin, maxkamaddana waa daawanaysaan. ma jirto arrinta ayaan loo qaadan inay tahay xaqiiqo. annagu ma aanan joogin, baan ahay, xaq baan u lahaa inaan xafiiska xeeraalinta goobjoog kala ahaado oo waxa uu samaynayo from beginning ilaa dhammaad. garsooruhu xaq buu leeyahay, qodobka u ogolaanaya. marka DNA-gaas waa inaan horta maxkamaddu gebi ahaanba meesha ka laashaa. haddii uu haya xafiiska xeeraalinta caddaymo intaas dhaafsiisan, caddaymo kaleeto oo la aamini karo oo reliable oo lagu kalsoonaan karo oo dhihi karo war nabare iyo waxaas waa hearsay way evidence maxkamadda horteed kama noqon karaan sawiro. 10 namar baa igu yaalla anigu cid baan kufsaday weligay laguma soo eedeyn. ma garateen qofka aadankaa wuxuu u baahan yahay in waxa uu galay la xaqiijiyo, ay tahay caddaynta maxkamadda la hor keenayaa dayax 15aad sida dayaxa waa inaa caddahay. haddii kale waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanaynaa inay eedda xeeraalinta gebi ahaanba ay laasho, isla markaana ay u dirto further information inay raadiyaan in eedkii dembigaa galena cadaaladda la hor keeno. kuwana hor muuqda eedaysanayaasha lagu sheegayo waxa leeyahay dembigan waa galeen leeyahay xafiiska xeeraalinta hadda ku qirayo ma aha, way ku dulman yihiin. 90 beri bay dembi aysan gelin meesha ugu fadhiyaan. waxay u baahan yihiin maanta cadaalad. maxkamaddana ma rabin inaan waqtiga ka qaadno, waxa weeye go-aankeeda iyadaa ku dhawaaqi doonta insha allah. maxkamaddu waa mahadsanta. waxaa isaga khaldan khabiir. jaahil baa tahay waa kuu sheegade jaahilnimada haysa waxay isku khaldayaan aqoon-yahanada. qofka wuxuusan aqoon jaahil buu ka yahay, ma yaqaanaan hay-adda forensiga sayniska. aqoon darada haysa wey. madmadow alla ku yaqaanba markaa laad miiska ima qaraacayna ma hadda ay qaraacaysa.
hay-adda faransiga sayniska iyo khabiirku waa kala labo. hay-addan hay-ad dawli ah wey, waa hay-ad baariseed, waa hay-ad sayniseed, iyo khabiirku waa kala labo. aqoon darrada hayso qareennada. khabiir waxaa magacaabi kara maxkamad, isaguna ma magacaaban karo, xeerlaaliyana ma magacaabi karo, maxkamaddaa magacaabaysa. labada darafna waa inay raalli ka yihiin. laakiin aqoon darrada haysaa waxay tahay hay-addii baarista sayniska iyo khabiir iyo isku khaldaya. marka bugaagta dib ha ugu noqdaan, maxkamadduna waa mahadsan. xeraalinta hadday nimankaas maqan yihiin xafiiskiisa u shaqayn maayo oo xogatan wax og oo hadda jooga ma jiraanin mise magaranaysa su-aal. sida loo sheegay labadii nin ay xafiiska u kala sarreeyey way maqan yihiin hadda. mid wuxuu jiraa maraykan sidaan u sheegay, waa ninkii tarjumadda lafteeda sameeyey oo ah madaxa xafiiska. ninka labaad yaasiin wuxuu jiraa isaguna wuxuu tegey Mauritius buu markii hore tegey, laakiin hadda waxaan kaga warhayaa Nairobi. marka labadaa nin ma joogaan labaduba dalka saasay. marka niman hadda aynu ku tashan karro maalin iyo 2 iyo 3 ma aha. laakiin waxaa la heli karaa oo jira nimankii goobta tegey lafteedii, nimankii goobta tegey oo midkood ku-xigeen yahay hadda ninka sii hayaha meesha ah yaa jooga. marka haddii loo baahdo isagana waa la wargeli karaa. bismi illahi raxmaan raxiim. waxaa la soo weydiiyey tiamka forensi labka markhaatiyaashka ay bixinayaan ama caddeymaha ay bixinayaan in la horkeeno maxkamadda horteeda. maxkamadda waan ka codsaday mar hore, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad baan ka codsaday in sharcigu qabo qodobka 25aad ee xeerka kufsiga inuu qabo in markhaatiyada noocaas oo kale ah lagu dhegaysto meel aan publica ahayn. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad aan usoo gudbiyey, guddoomiyuhuna wuu iga aqbalay. waxaan sugayey meesha publicada aadan ahaynna waxaa joogaya maxkamaddu dhinacyadii ay ka kooban tahay. qareemadu way joogayaan, xeraaliyuhu way joogayaan, maxkamadda iyo maxaan ku rahda iyo kaalihiis intaa fadhi ka kooban ayay maxkamaddu ku dhegaysanaysaa tiamka forensi labka oo caddeymaha loogu talagalay ee halkan inay ka clear gareeyaan ay bixiyaan. marka sharcigaa qaba qodobka 25aad ee xeerka kufsiga ayaa qaba. asalaamu calaykum waraxmatullah. haddaan akriyo bismi illahi raxmaan raxiim. yaa u ogolaaday qodobka 25aad maxkamadda iyo hay-adaha awoodda u leh waxay heer kastoo ay dacwaddu marayso soo saari karaan go-aano looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo shaacbixinta dhibana ama aqoonsiga markhaatiga. maxkamadda iyo hay-adaha awoodda u leh waxay heer kastoo dacwaddu maraysa soo saari karaan go-aan looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo ama looga hortago shaacbixinta dhibanaha ama aqoonsiga markhaatiga. maxkamaddu waxay amri kartaa kalfadhiyada dacwadda in lagu qaado meel qarsoodi ah. xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed, xeerka guud waxaa ka adag oo la qaadanaya xeerka kufsiga. xeerka waxaa ansixiyey samaysay wasaaradda cadaaladda, waxay hordhigtay xukuumaddii puntland, xukuumaddii waxay hordhigeen baarlamaankii baa ansixiyey, madaxweynihii baas dikreta waxaa lagu soo saaray bulletin officiale.
waxaana la yidhaahdaa xeerka kufsiga puntland. qodobkaasaa dhigaya xeerkaas guud waxaa ka adag xeerkan gaarka. maxkamaddu ha isu fiirisa labada xeer ka awoodda u leh. waana mahadsan. sheegay waxaana yidhi maxkamaddu hay fahamta siiqadan wuxuu ugu sheegay nimankaa 7 ah waa qaybta 2 tuunsanayaal bay noo yihiin. gabagabada xeerlaantu markay gaarto soo jeedinayso yaa shareecadda islaamku waxay ka qabto ka codsanaysaa maxkamadda in la waafajiyo. maxkamaddu ma intaasay diidan tahay? tuunkooda soo gudbi maxaa ku tuunsan tahay? gabagabadoodan kusoo gudbi inay ku lug leeyihiin tuunkii caaisha dilkeeda inay ku lug shareecadda islaamka. haddaad adu qareen tahay aada doodaysa garsoore ila dood, laakiin annagu waxa weeye xeerlaale haddaan nahay gabagabada yaanu soo jeedinaa shareecadda islaamka waxay ka qabto. waana marka saddexaad ay weydiisaa ilaali horta anshaxa ilaali maxkamadda xilli ay u baahdaan marka soo gudbi anshaxa maxkamaddan ilaali iyo dhegeysiga ciidanka maxkamadda. haddaan nidaamka la ilaalin waxba suurtagelina maaha. annagu xeerlaale haddaan nahay shareecadda islaamka waxay ka qabta nimanka in la waafajiyaan doonayna gabagabadaana soo jeedinayna. intaa wixii dhaafsisana maxkamadda ayada awood u lahaa samayso. waana mahadsan. gelin ka bixiya qoraala kiiskaas intaas ugu eegaya wixii qareen baa u tahay waa dura mana sii dhegeysan karo. bismillaahi dib baanu isugu noqonaynaa maada uu hadda nin garsoore ahi hadda naga baxay sida ugu dhaqsaha badanna jawaab baanu soo celinaynaa insha allahu tacaala. qofkii hadda fadhiyayana waa fadhiyi karaa, qofkii kalena waa tegi karaa, laakiin anagu jalsada inaanu ku soo celino aan rabnaa intaan laga kicin. waxaa muhimkaa oo sida kiisku soconay bilahi tawfiiq.